ururka bisha cas ee Somaliland qaybtiisa magaalada Berbera ayaa maanta xusay xuska maalinta bilaha cas iyo laanqeyrta cas ee adduunka. Munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalintani oo lagu qabtay magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday laamaha dawladda ee gobolka Saaxil, guddiga ururka bisha cas ee gobolka Saaxil iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka bisha cas ee gobolka Saaxil, Xuseen Maxamed Cismaan, waxaanu faahfaahin ka bixiyay ujeedada munaasabadani. maanta ay bishu ku beegan tahay 8 May waa maalinta loo asteeyay bilaha cas iyo laanqeyraha cas ee adduunka, taasoo ka soo bilaabmaysay 1859 haddana laga joogo qiyaastii 160 iyo dhowr sano. maanta oo aynu inagu halkan joogno ka dabaaldegayno Somaliland gobolladeeda oo dhan bisha cas way ka dabaaldegaysaa. sidoo kale caalamka meel kasta oo la joogo bilaha cas iyo laanqeyraha cas way ka dabaaldegayaan. marka inaguna waxaynu ka qaybnahay bilaha cas iyo laanqeyraha cas ee adduunka. ururada bilaha cas iyo laanqeyraha cas waa ururo samafal oo kala shaqeeya xukuumadaha arrimaha bini'aadanimada. inagu haddaynu nahay Somaliland, hadday tahay arrimaha abaaraha iyo aafooyinka iyo hadday tahay arrimaha caafimaadka, ururka bisha cas goob kasta oo la joogo dalka uu ka shaqeeyaa. haddaynu soo qaadno gobolkeena Saaxil, sanadkan iminkana dhaafay iyo kanaynu ku jiro abaarahan ay maanta leh hadda sanadka waddanka haystay laga soo bilaabo bishii November qaylandhaamihii u horreeyay iyo ilaa haddadan hawshii bisha cas ay waday siiba gobolkeena Saaxil way socotaa. waxa ugu horreysay dadka ku noqol tuulooyinka la yiraahdo Cilaan iyo Quulle oo ka tirsan degmada Gooda Weyn oo ahaa meelihii ugu horreeyay abaartu ay saameynteeda ka bilaabantay in muddo 3 bilood ah la siiyay 100 qoys lacago taakulayna la siinayay. waxaa kaloo jira arrinta biyaha si looga biyo la'aanta si looga gaashaanto ama waxa looga qabto in laba barkadood oo ku yaala magaalada Gooda Weyn la dayactiray markii laga soo guuray ee la soo dhaafay abaartu ay si kululaatay. gobolka markii la qiimeeyay ee hadday dawladda tahay hadday ururada tahay ee bisha cas tahay la qiimeeyay waxa ugu daraaday magaalooyinka ama tuulooyinka la Ximan iyo Dowdama. kuwaana waxa laga bilaabay taakulayn. sidoo kale ururka bisha cas ee gobolka Saaxil wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha caafimaadka iyadoo ay jiraan 2 moobil oo ka shaqeeya bariga iyo galbeedka iyo laasada cawo oo isna MCH ku jiro iyo hawlahan kale ee la yiraahdo muxuu ahaayay resilience ama ka soo kabashada oo dhow degmooyin kale ka socda oo ay ka mid tahay meesha la yiraahdo Siciid looyana horena barkad looga sameeyay iminkana tababaro iyo taakuleen kala wado meelaha Mandheera iyo qaxootiyadu degan yihiin iyadoo hadda gacanta lagu hayo gooda yar oo 40 qoys loo qodi doono beero. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii iyo marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi, waxaanay bogaadiyeen waxqabadka ururka bisha cas iyo laanqeyrta cas. amase ururka bisha cas aynaano waa hay'ad samafal urur samafal saynu ognahay si weyn oo aan uga mahadnaqaynaa runtii shaqooyinka ay qabtaan iyo gurmadka degdega ay sameeyaan iyo xaaladahaas ay guud ahaanba qaranka ula shaqeeyaan. aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa taana xagga shaqada haday tahay. bisha cas ee gobolka Saaxil waxaan oran karaa gobolada Somaliland oo dhan waa bisha cas ee ugu horeysa gobol ahaan degmo ahaan sida ay u dhameystireen ee active-ka haday gudaha degmada noqoto iyo haday daafaha noqoto. sidii aad maqlayseen uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha bisha cas Xuseen Maxamed Cismaan. waxaan leeyahay waa xaflad qiimo badan. runtii waxaan aad iyo aad xogagaal ugu ahay sida wacan ee hufan ee u shaqeyso bisha cas iyo laanqeyrta cas Berbera ama gobolka Saaxil sida uu wada gaadhay daafaha gobolka iyo magaalada gudaheedaba iyo sida ay uga qayb qaataan volunteerska ama shaqaalaha mutadawiciinta ah iyo shaqaalaha kaleba iyo maamulkooda oo isku xidhan iyo guddiduba. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay sanadkiisa Allah inagu gaarsiiyo nabadgeliyo barwaaqo bash iyo amal suuban iyo cibaado saxan. dadaalka aynu wadnana dadka aynu u dadaalayna ama aynu doonayna wax loo qabtana Ilaahay ha garansiiyo oo dadaalka loo galay iyo tacabka loo qabanayo ha noqdaan mid anfaca oo midho dhal ah. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.